Asalaamu calaykum dhammaan mucaashaqiinta xiiseysa Konami ama eFootball meel walba adduunweynaha ka joogtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub halkaad iga daawanaysaan waa Yaki Boy Gamer qofka idinla hadlayana waa saaxiibkiin oo walaalkiin Yaki Boy kusoo dhawaada muuqaal cusub subax walba oo khamiis ah salaada subax markaa soo tukano kadib waxaad igaga barateen inaa idin soo gudbiyo waxyaabaha tooska ah oo maanta oo khamiis ah la keeni doono iyo waqtiga saxda oo geemka markaasi lasoo deyn doono in aan idin soo gudbiyo intaan muuqaalka gudaha usii gelin waxaan kaa codsanaa inaad muuqaalkan like saarto channelkan aad subscribe dhahdo kambaleelkana aad furato si muuqaal walba oo aan soo dhigo uu kuu soo gaaro aad iyo aad ay u mahadsan tahay intaan oo subscribe la haysanaa 5,000 wax yara ay nooga harsan please and please haddii aadan weli nagu soo biirin fadlan nagu soo biir oo channelkan subscribe dheh muuqaalkan like garee aad iyo aad ay u mahadsan tahay intaas haddii aad ii samaysay muuqaalkeeni ayaa gudaha usii galaynaa waxaan kula wadaagi doonaa waxyaabaha sida rasmiga ah maanta geemka aa u dhex arki doontid ama la keeni doono waayahay geemka maanta waxaa la filayaa in aad ku dhex aragto ninkan la yiraahdo Dennis Lau sababta aad ugu dhex arkayso asagoo free ah maxay tahay shirkadda Konami warqadan ay soo dirtay oo markaasi ay ugu tacsiyeynayso familka iyo saaxiibada Dennis Lau saa wada ogtihiinba wuu baktiyey marka shirkadda Konami warqadaas ayay soo dhigtay barteeda Instagram-ka ay waxay soo dhigtay sawirkan ayadoo markaasi ugu tacsiyeynayso familka iyo asxaabta uu ku baktiyey Dennis Lau saa wada ogeedeenba sanadkan 2025 sanadka ka horeeyay Beckenbauer marka uu baktiyey shirkadda Konami waxay keentay asoo free ah oo booster ah ayay keentay sanadkaana maadaama uu Dennis Lau ayada u tacsiyeynayso waxaa boqolkiiba boqol la filayaa in ay keeni doonto Dennis Lau oo free ah oo double booster ah Dennis Lau qaabab fara badan ayuu ku imaan karaa Dennis Lau number 1 wuxuu ku imaan karaa in asigoo ibig ah oo keligiis ah free la isku siiyo oo aad tuuranaysid sidoo kale waxa ay noqon kartaa in wajahadan ama sidaan uu u muuqdo oo markaasi free lagu siiyo oo ku tuurato sidoo kale Dennis Lau waxay ku keeni kartaa sidaan in marka aad geemka aad sii galaysaba qaab free ah dhinaca boxka lagu soo geliyo oo aad markaasi sidaas aad ku hesho Dennis Lau ayaa geemka ku dhex arki doontaa maanta markii geemka la soo dacay sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa players of the week-yada la keeni doono shirkadda Konami waxay shaacisay sawirkan oo botowga ah ama worldwide-ka ama players of the week-yada qof walba sidoo u yaqaano 23 January 2025 waxay keeni doontaa sawirkan oo hadda aad shaashada ugu jeedo oo laakiinse la fahmaynin qofka uu yahay marka haddii aan kula wadaago sawirkaas waxaa waaye saddexdan rag oo halkaa ugu jeedo ninkan la yiraahdo Phil Foden, Rodrigo iyo Darwin Núñez haddii aan markaasi ratingkooda asla fiirino Darwin Núñez wuxuu ku imaan karaa 94 wuxuuna gaarayaa 100 sidoo kale ninkan la yiraahdo Phil Foden asagana wuxuu ku imaanayaa 96 wuxuuna gaarayaa 100 ilaa 101 sidoo kale ninkan la yiraahdo Rodrigo wuxuu ku imaanayaa 96 wuxuu gaarayaa 100 ilaa 101 ayuu gaarayaa 11 qof markaasi la keeni doono waxay noqon karaan 11 qof oo u horeeya Phil Foden, Rodrigo, Darwin Núñez raggan in la keeno waana qasab maanta in aad geemka ku dhex aragto ragga hadda aan kuu sheegay ama waxay noqon kartaa in markaasi sidaan loo keeno oo u horeeya Phil Foden, Darwin Núñez iyo raggan kaleeto oo halkaa ugu jeedaan oo qaabkan aad ku soo bandhigay in markaasi loo keeno ayaa boqolkiiba boqol la filayaa shaashada botowga ama players of the week-yada waxaa la soo saari doonaa Rodrigo, Phil Foden, Darwin Núñez saddexdaas ayaa la soo saari doonaa 11 qof shaashadooda ama botowga shaashadiisa sawirka u horeeyo saddexdaas ayaa la soo saari doonaa sidoo kale geemka waxaa lagu soo kordhin doonaa ibigis oo dab iyo xulac ah sida khamiis walba aanu ku baranay ibigis ayaa la keeni doonaa sababtan ibigiska la keeni doono aan kula wadaagi waayey waxaa waaye maalinka khamiista ibigyada ay keento shirkadda ma shaaciso sidoo kale waxaa la keeni doonaa showtime oo markaasi dab iyo xulac oo cabsi ah ayaa la keeni doonaa sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa waqtiga saxda ah ee geemka
la soo dayn doono. Soomaali marka aad joogno waqtiga saxda ah oo gameka la soo dayn doono waxaa waaye 5 saac oo subaxnimo. 5 saac oo subaxnimo ayaa la soo dayn doonaa gameka. Please haddii aad intaan nala soo gaartay muuqaalkan like sar, channelkana subscribe dheh, gambaleelkana furo si muuqaal walbo aan soo dhigo uu kuu soo gaaro.